hagaag adigoo magacaaga ku bilaabaya meeshan maxaad ka soo doontay okay magacaygu waa Haajir magacaaga ku bilaabaya meeshan maxaad ka soo doontay dan magacaygu waxa weeyaan de Nadiira hay Haajir ka waran jawiga maanta aad joogto ma sha Allah dhulka waa cajiib geeda akhtara ka baxay rooba ka da'ay ma sha Allah faala hay Nadiira ka waran jawiga maanta aad joogto jawiga maanta wallahi waa meel fiican geeda akhtara ka baxay roobka si fiican ugu da'ay ma sha Allah faala maxaad is leedahay meeshani way kaga duwan tahay meelaha kale meeshan meeshan waa qurux badan tahay meelaha kale way ka qurux badan tahay ma sha Allah biyo leedahay dibiyaa joogo maxaa yiraahdaa awsam ka baxayo meel walba dad qowsaarayna way joogan dibiga ilaalinayo ma sha Allah waa meesha ay ka waran meelaha kale maxay kaga duwan tahay leedahay meeshani meelaha kale ee maxaan ku saano kala والله ده الملاك كل ماشي بقى قروح بضن ماشي عن انتو سن روبكو دي ان كهور ماشان ما يمان جرتي مركز ابار بو هاي اما كلاك waa cajiib akhtar waay ma sha Allah hay marka maalmihii hore intuu soo roobku diin ma iman jirtay markii roobada meesha abaar buu hay imika wala waa ka wala akhtar cajiib aan gatay maxaad dadka ku daawanay ku oran lahayd dadka ku daawanay maxaad ku oran lahayd salaamadeenaya waa maasantiin haye dadka ku daawanaya maxaad leedahay dadka ku daawanaya haddee dadka ay daawanaya waa salaamadeenaya waa mahadsantihiin ku soo dhawaada seeraha Boorama ruuxi Boorame dirtuwada udgoonay dhaamel ku yaalay maanta waxaan soo booqanay seeraha magaalada Boorama mudooyinkan isbuucan waxaan joognay magaalada Boorama marka aniga iyo saaxiibkayga waan wada soconno marka waxaan nimid seeraha Boorama oo ah runtii meel aad u qurux badan bulsho badan timaado xilliyada firaaqadana jawi ay ku qaataan meesha runtii waa meel dalxiis oo kale jawi degan shabaqda shimbiraha inaad maqashaan aan filaa oo ayadana aad u sareyso meesha maaha runtii meel cajaa'ib ah waa meel aan maxaa la yiraahdaa nafta jeclaanayso ku leedahay maxaa la yiraahdaa cabaar waqti ugu soo maxaa la yiraahdaa waqti ugu qaado hadda almost goor sheegta waxay ku dhowdahay 5:20 galabnimo marka waxaan rajeynaynaa inaan sii joogi doono ilaa iyo maqribkii oo kale ilaa iyo inta insheena ay qabato waxa waaye dhul wada dooga oo cagaar ah oo wada akhtara marka nafta waxay ku leedahay cabaar waqti iskaga qaado joog marka ku soo dhawaada seeraha waxaan wada soconaa anigii saaxiibkayga lade marka waxaan rabnaa intii xoogaaya inaan meeshan joogno ladow waa iga sii hormartay ka waran meeshan jawigu wallahi aad u qurux badan yahay dhulku aad buu cagaaran yahay dhul aad u qurux badan oo inta badan ku fiican inaad maanta dhan iska daadaawato ood ku dalxiisto ma sha Allah biyihii buu leeyahay oo dhul dhijaamihii biyuhu ay dhex fadhiyaan wallahi ma sha Allah aad buu qurux badan ushan maxaa wadataa ushan wallahi waa iska waxa la dhahaa emergency case waxba ka soo xorbo hadduu kaa soo horbaxo waa ku dhajinay emergency baa la dhahaayo emergency ga loo isticmaalaa ushan la waxay ogtaa ulaha askartoo kale waa may waa iska fudud weeyaan waa fududahay marka ana saa ugu dhaftaa waa saxdi weeyaan kuleel magaxay halkaasaan soo eegaynaa meesha geedaha dhaadheer leh seeraha magaalada xaguu ka xigaa ma dhinaca bari mas dhinaca koonfureed waa wuxuu ka xigaa waqooyi magaalada Boorama ka xigaa seeru xagga waqooyi ka xigaa laakiin magaaladu maadaama ay ballaaratay iminka bari iyo galbeed labadaba way ka xigtaa magaalada maadaama aad u ballaaratay dhinaca galbeedkana xaasiliga ka xigta dhinaca barigana waxa ka xigta Sheekh Cali ama Faaraxyo oo ayagana waa goobo kale loo dalxiistay may waa xaafado kale oo magaalada ka tirsan xaasilida iyo Faaraxyo wow meeshan diin waxa joogo meeqa xabo waa diimahan yahay laba xabo diin weyn aan u jeednaa السلام عليكم my friend
naga xarootay war ninka odayga uu naga xarooday saaxiib soo bax ruuxii boorame dirtuwada udgoonay dhaamel ku yaalay ubax wada dhalaalo dambaladu casaadeen dhaxadu ay furuu tahay sida dhuuxii boorame dirtuwada udgoonay dhaamel ku yaalay ubax wada dhalaalo dambaladu casaadeen dhaxadu ay furuu tahay sidabaad u dhiiganto debi baxay la moote filaysa maanta seerahan inuu saan u qurux badnaado ma ka rajaynaysa saaxiib horta ma filin waxaan filayay maxaa la yiraahdaa inaan tagi doono dhulka abaara seeraha abaara oo maxaa la yiraahdaa qalayla laakiin markaan arkan meeshan dhulku siduu yahay waxaan jeclaystay daqiiqado kala badan saacado kala badan inaan sii joogo marka waa maalintii waxa kuugu horeysay seerahan la taweeyay halka hor maalintaas waxaan maqnaa mar inaan ku irana keen laakiin hadana waxa ma suurta galin ma garan karo sababta waa iga dhuumatay filaaliyo waa iga dhuumatay laakiin galabtaan imaanay seerahan marka waxaan filayay aniga laftirkayga inay magaalada Cambaar ka sii fogtahay laakiin sida uu ma sii fogo dhinaca koonfureed ma taras ay dhinaca waqooyiga xagga ayuu ka faarax yaa dhinacaas laga xiga dhinacana dad jeedana xaasleeyay laga xigta oo magaalada bartankeedii marka loo ana faaraxyo ma magaca ama waa faaraxyo waa xaafad xaafadda faaraxyada Sheekh Cali qaybta dhamaadka weeyaan qaybtaas la yiraahdo faaraxyo oo magaalada uga beegan xagga qiblada marka qiblada ka xigta seerahan xagga qibladu ku beegan xagga qibladu ku beegan yahay marka seerahan awal maxaa micnaha guud loogu talagalay muxuu ahaa wallahi horta in dawladda iska lahaydooda waa seerihii dawladda marka seeraha macnaha waxa uu fahmaanay meel loogu talagalay in lagu nasto waa ka meel lagu dalxiiso oo loo soo dalxiisto loo soo daawasho yimaado qofku markuu jawigii nolosha uu ku soo daalo inuu yimaado iskaga nasto dhul cagaaran oo qurux badan shimbiraha dhawaqooga iska dhageysto relaxed uu niyada ku dejiyo uu dareemo inuu meesha ku raaxaysanayo marka balka waran adigu daay markaan soo soconay waxa jirta mar igu tiri niyahow aan ku weydiisan oo kala seeraha maxaa waaye waxa igu tiri looguma talagelin in la dego waxa loogu talagalay looguma talagelin in la dego xilliga roobka dego biyaha maro saas ay tusoo meeshan waa meel biyo mareen oo markaad cidii soo degtay hadhow biyo baa la tagaya marka waa biyo mareen meel la degi kara ma Soomaalidu kale way soo taqaanay dhulka biyo mareenka dhul la degi kara ma dhul meel walba biyo marayaan marka sida darteed waxay noqotay marka in maxay leedahay qofka inuu u yimaado nasiino mooyaane dhul deegaan ma hadii kale xariifku waa naftiisa khatar galay sababtoo ah carracasna way soo hada gurigii dilaaci balaya ku imaanayo gurigiiba la burburu u dhawaanay gurigii markii laga dhiso dilaaci waxa imaanayo meeshan biyo ay tahay hadda soo jeedo meeshan ay biyo haleedahay horta meeshan anaga waa ka helnay waxaan jeclaan lahayn idinkana daawanayo inay idinkana soo booqataan waxaan ka sheegeen inay idinkana bal waxuuna ka soo aragtaan haddii aad dhacdo inaad ka heshaan waxaan jeclaan lahaa commentiga inaad nagula wadaagi doontaan sidaan waxaan sheegnay iyo waxa meesha yaalo haddii kala duwan yihiin iyo haddii isku mid yihiin ku soo dhawaada magaalada sidoo kale waxaan leenahay dadka waxaan ku leeyahay saaxiibo channelka Hajir Pro subscribe saara channelka daawanaysan waa Hajir Pro noo subscribe gareeya noo share gareeya sidoo kale muuqaalka noo like gareeya وين نوقف أنا هنجي إلا وين أوكي لا سبسكرايب قرأي channel أيه نكان لذا اللي ده سيدو قرأ سحيب كي channel كان بحبوسه قلت بسالي يعني أظن فلاقي هذا إيو شيء كوين كوسو بيا مش شيء كوين كوسو قلت بسالي فلاقي كذا سكو دحك ساعة لو سكو دحك alright نكان channel كيس صوب بغلا لذا ميديا كورنا سوا لذا ميديا كورنا سجنا صوب بغلا بركة واسيس عنينا وقت يهضر حمدين وكباب سيهاي علينا فرق وتاجنا سبسكرايب مر والبا si aad ula socoto waxyaabii ugu dambeeyay ee channelkan Hajir Pro mar walba subscribe ku qabo gambareerkana furo billahi walanteenu waa subscribe
wadnahaad ku dhiigante gabarkaad ku mudante dibinadaad ku maarante aku arkaa wanag dhacal u yeeshe aku arkaa wanag dhaxal u yeeshe waanigan dhaqaaqo wan dhoofayaaye axad meel ma dhigana waanigan dhaqaaqo wan dhoofayaaye axad meel ma dhigana